السلام عليكم ورحمة الله. جاليال soo dhawaada waa kanaaco idinka soo salaamayo meeshii quruxda badneyd ee runtii indhaha doogsigooda iyo nasiimada iyo socodka iyo maxaan ku rahdaay inta aad asxaabtaada ama qoyskaaga ama ciyaalkaaga ama ehelkaaga soo raacdaan aad ku nasan karaysay intaad xogaygaaga yarka ay cuntada iska soo qaadatid caadiyanba environment-iga iyo jawigan oo kale markaad timaadid oo niyadda kuu degto oo maskaxda kuu degto oo booqiisa waxanka aad ka soo baxdo waad dareemi karaysaa runtii markaad hawadaas caafimaadka qabta ay qaadatid ood shimbirahaas iyo sanqadhaasi aad runtii la keliyeysatid ama buuggaaga iska soo yara qaadatid ood waqti yar aad ku qaadatid halkoo saac 2 saac haddaad ka badin kartid socod yar aad ku dartid yaa waxaad noqonaysaa adigoo runtii si fiican u nastay maalintaad kuu qurux badnaatay jawigaagana aad kugu wanaagsanaaday maalmahan runtii aad baa loo soo baranayaa waxaan xasuustaa meeshan oo runtii halkan hadda fadhiya hadda koor baan follow ku sameeyey I think 2018 meeshaan xoogaa raf ah oo wadada sida loogu soconayo wadadan quruxda badan aan lahayn jawiga hadda siduu yahay ay ka duwan yahay cilla ay tahay dadkii ay ku yar yihiin deedna 2020kii xilligii lockdown-ka la galayba haddana meeshaani runtii dadka kusoo bateen guryihii marka la isku xabisay oo meel la aada la waayo oo stresskii buuqii batay baa xoogay yaroo socodka markii la yaro ogolaaday baa goobahan la iman jiray dad badan baa ku nasan jiray iyadoo la kala fogaanayo waqtiba waqtiga ka dambeeya waxaad moodaa waqtiga lagu jiro hadda waqtiga aad dhihi karayo runtii waqtiga ugu badnaa aan arko bulsho badan oo Soomaaliyeed soo baxda oo lugaysa oo socota oo jarmaada oo galab socota oo habeen socota oo goobo badan oo magaalada Nairobi ku taala runtii koox iyo asxaab la isku raacay waxaan soo fahmaynaa muhiimadda ay leedahay socodka waxaan soo fahmaynaa muhiimadda ay leedahay inaan caafimaadkeena nafteena ku shaqeyno waxaan soo fahmaynaa cuntada faraha badan leh aan caafimaadka ahayn ee cunno sideen jirkeena uga sii deyn lahayn uga saari lahayn yani soo fahmaynaa runtii aynu nafteena waqti la qaadano aan jeclaan lahaa inaan balbooriyo goobahan marka la imanayo in la isu soo diyaariyo oo qofku uu ku soo talagalo inuu dee socod soo gelayo marmarka qaar inaad waxaan ku xasuustay qodobkan hadda ka hor aniga iyo nin saaxiibano Ismaal yiraahday maani xilligii corona baan ordi jirnay waqti oo xoogaa intaanu soo baxno baanu xoogaa yaroo ordi yaroo oo ruuleen ah ku sameyn jirnay isli dhexdeeda marka nin akhyaarta ka mid ah baan soo raacay waqti markaan orodkii bilowna waxaan maqlay qub waya reebel maxaa dhacay baan ku yiri warkaasaan hoos fiiray kaba kooyista marka warsee wax ku wadaaniyo kabahan kooyaha lugahay ku xanuunjinaa laguma ordee yaa waxaan ku ordin ka daa niyo adeegan ka muuqda dacaayad maaha waxaan maqli jiray iyadoo reer gaalkacyood lagu dacaayadeeyo in mooska qubka ku cunay oo la yiri wartay mooska ka daa qubka ku cunay yiri adeegan ka raba adeega marka iminka akhyaar badan baa kooyaha ku socda dhaleecaynayma igama aha inuu sameynayo laakiinse markaad runtii aad rabtid inaad xoogaa ruucleen orada samayso ama socod fiican samayso waxaad ku raaxaysan kartaa marka aad xoogaa kaba sports oo degan oo aad yani comfort ku tahay inaad soo xiratid runtii baraarug fiican baa jira dadka iminka way soconayaan waana arrin wanaagsan runtii in laga qayb qaato socodkaasi iyo exercise-kaasi caafimaadka laga wada shaqeeyo hal qodob baa runtii oo nasiib darro baa weli ka jirta guryihii oo weli sonkorti baa la cunayaa saliidii baa jirta cuntadii baa weli wax laga bedelin maanta oo dhan markaa ordid 2 saac 3 saac 1 saac ugu yaraan marka aad soo caalamintaysid haddana wixii aad meesheeda ka misday jugjug meeshaada joog iyo ka daran bay noqonaysaa marka exercise-kii socodkii caalamintada hala wado cuntadana wax badan laga bedelo anigu coach miihi
laakiin sida dee maskaxdeeni iyo caqligeena noo sheegaya sidaa ah isbeddel haddii la rabo waa in cuntadeena wax laga bedelo ya exercisekiina la wado aad baa mahadsan tihiin mar kale waxaan kasoo salaamayaa meeshii quruxda badneed la soo baxo asalaamu calaykum